عروريو الرول دكو ودعودان midnaan cayrinaynine oo carre mayba nesko koynay intii nool kaarna coronavirus amba covid-19 wala lankaso last sanadkii hataa dhaafani dhamaadshaya mayba 2019 ki December 2019 ki mayba outbreak diyaha China Wuhan ya mayba outbreak lkarga coronavirus virus kun oo markaasay la rajari horaan lanka hela jari zoonotic disease leeyahay adduunka in badan ka qayleeday seasing oxygen coronavirus kan markii hore coronavirus leeyahay laakiin mars ya mayba lambiye covid-19 lambi WHO magacaasan ka maga dartay cudurkan waa cudur oo mayleeyahay inta badan cudurada ka dhiyayaan xoolaha then bini'aadamka may baahan sameeyaan transmission sameeyaan haddana may balan aragay cudurkaas intii uu xaaladsan ka jeesido bini'aadamka waxyaabaha anka badan uu sheeno corona hayaan intii bini'aadamka halis galiye because calaamadooyin may ba kamid ah acute respiratory distress lay sababtoo meelaha oo fetal organism leeyahay ya ka jaran intii respiratory markuu aad Southwest ahaan state may ba officially lan sameeyay intii training gobana wasaaradda federaalka inay kaalmeeytay dadkii training hanaysiidi uuna may ba implement gareynay training ki shalay 20 haytay markuu guud ahaan may ba lan sameeyay amba xafladun lay sameeyay amba screening lay sameeyay may ba guud ahaantii haytay intii ku wacyi gelin wasaaradda ahaan coronavirus wali iyo qaabkii naniska ilaalifaday markuu eedeeda magnasantin dhamaan calaamadooyin shay kulay in badan aragden IEC-diga meel badan la hadhiki pamphletkaas emailkaas la kaaro kor markuu bulsho weyn Southwest State especially Kharbai region mayba ka wacyi geliyaan guud ahaantiis coronavirus ilaahay minishaana laakiin may waayahan gobolkan hatta wal la kaarga male laakiin may ba jirtay hadii walaagayba cudurkii pandemic nagado wal white ba ko waadan may ba jira wal alartikin shadame adeena alartigaas may ba keenmada tahantiada diyaar garowta barbarna sameeyta may ba ka jarna una barbarnaski may ba detection ka sameeydoon hadii ilaahay ran screening guud ahaan meeliba intriga Southwest ahaan especially may ba ka bilowdoon hadii ilaahay raada barito airport weyn shaati gaduud international airport eedeeda ma hasantin dhamaantiin samsanto miski kulli waqti badan masku qaadana may haytay waxyaabaha una bulshada ka faa'iideysa fadawuntii bahalkan may leeyahay martadii oo horeeyayna sheegtay wali geek inta in soo dadkii oo xirfadleyaalka caafimaadka wasaaradda koonfur galbeed iyo partners kale iyo WHO ujeedadan ku muhiimsan oo inta soo kooyno wali waxa in oo qodobadii oo laaska ogolaaday oo hayaan in maadaama cudurkan oo outbreak-gan jara wadanka oo macnaha responsibility wala hagaajiyay wali muhiim ah in oo teamiskan oo tababarkan qaadadeen oo ujeedada lan tababareen in yo suubiyan case search iyo screening oo ku suubiyan meelo oo entry points wadanka si oo hansaaran caseski oo in case oo ilaahay noo koriya la hadii dhiyada oo case-ki oo lagu shaki cudurkan oo covid-19 ka leeyahay ku baadana la ka dhigka case-ka si timaanaha isolation ki la marsiyo management support tagi kala oo san baahanayna macnaha suurta gal wali rajay teamka oo la tababari oo programkan la tababari in oo yo sidii tababarkii oo qaadan iyo nay procedure-di oo indexinay
qaabka oo naftiiti oo in the first place muhiimad waliba in qaabkii uu isbadbaadi koraan oo cudurkaasi uu iska badbaadi koraan iyo eed xoog aan saaran ku bacdana hadana ku fikiraan macnaha case surgery iyo case detection ki iyo notification ki iyo meelowii kale oo shaqada qaabkii hayti oo lanqobada geek waliba ha WHO iyo wasaaradda caafimaadka oo koonfur galbeed iyo kaaladayeen wasaaradda caafimaadka oo federaalka wali meelay raayis launch gareeyaynaha programkii oo hay oo response ama preparedness balankii oo hay in oo cudurkii la diyaar garow ilaahay noo koriya lacala hadii in case kooy wali hadda la bilaabo fadaahan magaalada Baydhabo airport then ku bacdana boqol already wal ku bilaaway iyo cross borderada meelo oo entry points ka oo koonfur galbeed yaala leeta marka way rajeeyeen in oo qaabkan ka haboon oo walaan ilaahay noo koriya lan soo bi kor dadaal badan mas'uuliyad waliba way laaha dadka oo dhan alle mas'uuliyad goon wasaaradda caafimaadka MS WHO mis partners ka kala oo lay angoon MA waliba collective responsibility way oo wali kale muhiim ah dadka oo xirfadlayaalka caafimaadka oo shirkuha qayb galeen in oo bulshadii oo iyo metelaayeen ama se oo gadaal ku jartay farmiinta sida oo aan ka haboon iyo deersiyan oo sida oo social distancing wala ulan ka soo oo in la shal dheerada oo macnaha islaamo kana meel raayis isku siyaray meetinadan oo dadka badan ka qayb galaan la ku fikira wali kale eed muhiim ah in oo xoog la saara in bulshada la ku wacyigeliyo nadaafada la ku wacyigeliyo marka eeda kama hadnaaqay dhamaan dadka oo hay'adda WHO oo meel raay barnaamijkan galweyn ku jeesidahayd iyo dawladda federaalka oo saasoo kale yoon meel ku marnayna wal weyn meel raay dadku support gareeyaan dadku taageerayaan geeko taariikhda 21 bil saddexaad wali waxa maalintii oo wasaaradda caafimaadka iyo daahfurka sameeytay wasaaradda caafimaadka waliba daahfurka sameeytay meel raay ka hortagga cudurkan dilaaga ah adduunyada walbadan saameeyay oo lanka saameeyay raay coronavirus markuu lana meel raay daahfura sameeyni ma macnaha cudurkiya wadanka ya Baydhabo mase koonfur galbeed lagu helay laakiin waliba lagu helay wadanka Soomaaliya inkastoo wadanka lagu helay siisin boogtiin meel raay gobolada xiriirileyn dadka in Soomaaliya Muqdisho ilaa iyo Hargeysa dhatiyo safar badan jiraan saas daraadii meel raay lanku horseeda cudurkii oo wadanka hagalay ya wali muhiim ah intii bulshadina la wacyigeliyo oo dadna lan tababar dadkii la tababaray dadkii isan araga haytan inta fadhiyaan oo ku howlgala doonaan meel raay eelboorada iyo meelooyinka muhiimka saasoo kale waliba rajaana intii gobol state ku sidhan meel raay meelooyinka oo todoba meelood oo kale ya waliba aan ogoonsanay intii meel raay iyo eelboor leeyin hal meelna meel raay iyo tameelo oo wadan shisheeye mas wadamo deriska oo kula sida Ethiopia oo kale anta sidii dhan waliba aan baahanyeena intii meel raay lan suubi dad oo ku warqaba cudurkii meel raay la socodshey iyo ku warqabayaan guud ahaan aan waliba baraarujiyay intii meel raay bulshada la ka wacyigeliyo cudurkan intuu seeyay cudur oo aan lahayn gaaliyo muslim aan lahayn macnaha dadka birsho waliba ka raayana walaan wal gaalay ka dhiiwa hawal neediyaw ma macnaha gaaliyo muslim male cudur hooba kooy dhibaato hooba kooy dadka dhanka samanga meel raayaan aan saamayaas guud ahaan waliba kala dardaarmaan dadka oo bulshada koonfur galbeed intii meel raay dhakhaatiirta wala iyo faraayan intii meel raay wasaaradda caafimaadka iyo faraasa intii iyo andhiga nuglaadan sida oo intii cudurkii meel raay galnyal isku dhaga nadaafada personal hygiene kala dadaala waxyaabaha kale oo ku dardaarmaan waliba kumada masaajidada oo kale waliba muhiim ah intii meel raay dadka maalinta jamaacada la neeskooyo oo kale intii lan walba xaafadiisa ku weysa qaadada oo biraagtila ku weysa qaadada maalinta sidii meel raay lan ku weysa qaadana lan walba xaafadiisa ku weysa qaadada masaajidka saas la kooy hadii oo ilaahay qadaro meel raay wal shaka kooyana wali muhiim ah meel raay intii oo dadka shal dheeradaan oo social distancing la ka dadaala
beelooyinka badan la iska kooyo sida muqaayid iyo lambadantii usulay ku qabsaday gaasiyada ku taba oo meel ay bulsho badan oo meel iska kooyasa mas'uula dadka raayaan overcrowd ka badan la isku ilaaliyo intaas meel ay dardaarmaana waliba meel ay oo dambeeyay wasiirka iyo agaasimihii iyo dad badan oo aad muhiim ah oo dambeeyaan أنا كلمة أنت كوبا. لا أولاً إله سبحانه وتعالى ما هتسكله ونو سورة قلي إن أسوق إيمان نميت النوعانه أنا كو كهلا إنه يعني دنيا هنا إيو محل هاي دنها جود هان شعبك جارهان خيركم في قلبك وحروا إنا سلامه سيدو كله قف كسر مقامكم مسكوا بدي وجوه وزير كان عافماتك وزير محمد عثمان أقاسمها جود advisorka dhamaan qof kasta meesha waxa ku salaama taytalka uu ku fadhiyo taas kasoo waxa rabaa inaan u mahad celiyo wasiirka wasaaradda caafimaadka madana Ismaa Maxamed iyo agaasimihiisa iyo tiimka dhamaan ka shaqeeya barnaamijkan oo markasta u taagan u gargaaridda iyo maxaa la dhahay ilaalinta shacabkooda qaybta kaga aadan oo caafimaadka wax badan dadku way sheegeen waxa rabaa inaan xogo awareness ahaan dadka u sii gaarsiino dhibaatadan oo ka jirto wadanka oo maanta la iskugu imaado oo ah xanuunkan la dhaho coronavirus ama loo yaqaan COVID-19 oo adduunka dhan ka qeylisiiyay ma aha Soomaaliya kaliya saala socono cudurkan sida la sheegay wuxuu bilowday sanadkii hore dhamaadkiisa December 2019 ama 2019 wuxuu ka bilowday wadanka China si wuxuu ku fiday marka xawli ah oo yani aan la kontrooli karin ilaa hadda waxa maraa America iyo Europe iyo dadkii wadamada qowdaha waaweyn sheeganay abdeediyada ugu dambeeyay waxay sheegayaan ugu yaraan maxaa la dhahay 277,280 case in la helo adduunka marka laga hadlo sidoo kale 11,431 qofna oo dhimatay waa dareemi karnaa marka dhibaatadiisa inta la eg tahay iyo xawligiisa waxaa rabaa marka inaan fariin inta uga diro shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan reer Koonfur Galbeed xanuunkan ma ahan xanuun yaa maxaa la dhahay ay control karaan kaliya dadka ka shaqeeya caafimaadka ama wasaaradda caafimaadka xanuunkan waxa u baahanahay in loo istaago dadka dhan inay u istaagaan sida looga hortagi lahaa u yareyn lahayn inuu fido salahan hadda anaga Soomaaliya wali halkiisa la helaa wax badan laga ma helin laakiin hadii aan loo istaagin oo qof kasta ay soo istaagin sidii waxaan ay ku control lahayd ayadoo marayso waxyaabaha loo sheegay ama waxyaabaha lagu tababaro kale wuxuu ku fidaa si xawli ah si oo maxaa la dhahay waan qana Soomaali hadaan nahnay dhiba ku qabnaa in oo salaanta inaan iska joojino kale inaan isku soo dhawaano kale laakiin waxaan rabnaa inaan baraato keeno xanuunkan calaamadihiisa lagu yaqaan waxa waaye respiratory infection waa xanuunada ku dhaco neef mareenka kale oo la mid yahay sida hargabka kale waxa uu naqaano kale bronkiitado kale qofka marka wuxuu yeelanaa xitaa xasaasiyado kale somehow uu wegyahay ama wax loo yaqaan allergiga qofka wuxuu yeelanaa qufac hindhiso cunahaan oo xanuuno kadib jastiga wuxuu ku degaa xabadka kadib wuxuu qofka bilaabaa neeftii inay ku adkaato oo ah xanaanadaha ugu dambeeya waa marka la leeyahay marka qof kasta oo isku arka calaamadahaas la xiriiro xarumaha caafimaadka u dhow micnaheedu ma ahan qofka xanuunku ku dhacay laakiin maxaa rabnaa inaan yareeno inuu fida la rabnaa inaan yareeno waxaan gaalada bas ku dhacaa hadii laga dhaadhiciyo qalad waa xanuunka waxa waaye qof kasta Ilaahay u qadar ku dhici karaa muslimin ku dhacaa gaalo ku dhacaa hadda dad badan oo waxa ku dhinta oo muslimiin ah oo haddana qaarkood ay u jiifaan isbitaalada ay ku jiraan waxaan rabnaa marka anagoo ka faa'iideysanayna maanta jaaniskan oo barnaamijkan quruxda badan dadka loo soo tababaray oo hadeertaan inta fadhiyo oo la rabo inay ka shaqeeyaan aeroboorada kale dhammaan gobolada oo state-kan uu ka koobay 3 gobol ha noqoto Shabeellada Hoose Boqol ha noqoto Bay ha noqoto dhamaantood waxaan rabnaa in ay laftigoodu dhahno inay adkeeyaan hawshan inaan loo qaadanin wax sahlan oo la iska fududeysto qof kastana ay doorkeeda muhiim ka ciyaarto sidoo kale waxaan rabnaa inaan gaarsiino fariinta ah ururada dhalinyarada haweenka dhammaan bulshada ku nool goboladan ama Soomaalida dhan inay ka qayb qaataan istaagida yareynta fidida xanuunkan laana qof kasta oo maanta haduu inta imaado qof kasta gaari kara qof gooni ugu dhacaa ma lahan qof mucjizo oo lagu imtixaanaa male laakiin waxa waa wax oo adduunka dhan ka dhaca oo imtixaan oo anaga dhan loo soo diray waaye
waqti badan ma haysano dad badan ay ka dambeeyo hadalka inaan ku sii dheeraado ma rabi waxaan rabaa marka dadka ka shal saarto tiish ama cover marka hindisi sidoo kale xoogo mitir inaan isku jirsano oo kala dheeraano salaanta dhaqan adaga leena hada Soomaalinahay oo salaanta inaan xoogo iska yareeno hadaan dhaafi karin hada ma iska dhaafno dhalinyarada waa naqaanaa meelaha ninka iskugu imaana oo aan ku sheekeysano ugu yaraan inaan kala fogaano ama iska joojino inta waxaan occupation period kan ama xilligan oo xilli huuriska loo yaqaan 15 maalmood oo xanuunka uu fidaayo kale hadda waa la joojiyay ognahay international wixii kor nooga imaanayay sababta waxa waaye waxa la diidaa in kaysas cusub oo kale hadana ay noo imaadaan tusaale ahaan ilaahay naga haayo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka magan galeena marka waxaan rabaa in hadalkayga ku soo koobo annaga dhan aan u istaagno qof kasta oo Soomaali sheegto qof kasta oo state kan sheegto waajiba ka saaran in aad u istaagtid yareynta ama baabi'inta fiditaanka xanuunka loo yaqaan COVID-19 aad ama xarunta badqabka caafimaadka xarunta badqabka dadweynaha ee Koonfur Galbeed Soomaaliya xarunta waxa loo furaa dadka qaba cudurkan COVID-19 in lagu xanaaneeyo laguna laguna ilaaliyo si uu cudurkan u faafin oo dad kale uusan u gaarin hadii hadda waxaan rabnaa in xarunta furno oo aan dayactirno xarunta hadda ka hor waxa lagu daaweyn jiray koleeraha maanta waxaan rabnaa in maadaama arin emergency ay maaday ka dhigno xarunta lagu daaweyn lahaa ama lagu karantiin lahaa cudurkan COVID-19 waxaan rabnaa inaan tababarno shaqaalaha oo ka shaqeeyo isbitaalkan gaar ahaan xaruntan dadkii ka shaqeyn lahaa iyo qalabeynteeda iyo dayactirkeedaba anaga mas'uuliyadeeda qaadnay anagoo u kaashanayna hay'adda caafimaadka adduunka iyo wasaaradda caafimaadka federaalka Soomaaliya aadaan u mahadsantihiin maantana waxaa soo furnay oo noo furan xarunta badqabka dadweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya aadaan u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meelaso geekunan diyaariyahayna in oo lan diyaari lanka tirgala cudurkan cusub oo COVID-19 oo caalamka dhibaato badan ka hay hadii ilaahay insha Allah may fadaanaha Koonfur Galbeed ahaan una qayb qaadan wali oo emergency koy ma fadaan cudurka inuusan koy ida inneebna laakiin se hadii la alla koy wal kasta wayba wali dheedoon moojini markan may fadaan la alla hadii koy soonan ka diyaar garowna wal kasta wayn baahanyin in la diyaar garow marka may baan diyaarnay xarunta oo in la ka xanaanay cudurkan oo COVID-19 oo qayb isolated oo dadkana wayba la ku ilaaliyo in uu safaaf waan la ka daaway doon hadii ilaahay yamayaan ka diyaarnay xarunta qayb kamid oo bayxaaw yaan ka diyaarnay meelas oo lan aragay in oo ka haboonta in la ka ilaaliyo kiisaskaas maadaama atmeel gees oo wana ka haboon oo in lan ka tirgalay ya fadaan hadii ilaahay markaan may ba kaalin weyn qaado doon hadii ilaahay dhammaan bulshada Koonfur Galbeed ku nool gaar ahaan wasaaradda caafimaadka hormuudan hadii ilaahay insha Allah wasaaradda caafimaadka iyaduna may fadaan in kaalin weyn yoon qaadan sidii xaruntan lan dadargelilahay silanka hortaga cudurkan hadii ilaahay markan ma ka dhawaay doona insha Allah agaasima u sii wali faahfaahin si doona assalamu alaykum beed shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo mar walba u taagan sida u wacyi gelin lahaayeen in dhiirigelin lahaayeen shacabkooda ku nool deegaanka Koonfur Galbeed waxa halkan maanta ku daahfuraynaa tababar oo muddo soo socday team loo soo tababaray inay ka hortagaan daaweeyaan ayna baaraan cudurkan la dhaho COVID-19 waxa lagu soo tababaray wasaaradda caafimaadka federaalka Muqdisho gobolada saddexda gobolba dad matalay oo ka socday jiray dadkaas haddana waxaan rabnaa inay si tababaraan waxaa loo soo tababaray si macallinnimo inuu fariintan gudbiyo oo dadkiisa gaarsiiyo loo soo tababaray waxaana rabnaa inaan gaarsiino saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Baay Bakool iyo Lower Shabeelle iyo 18 degmo ee Koonfur Galbeed ka kooban tahay sidoo kale waxaan rabnaa in tuulo walbo
degmo walba ilaa ay tuulo uu gaaro maxaa lahay sidii loo yareyn lahaa cudurkan ama looga hortagi lahaa waxaana ugu muhiimsan airboorada meelaha maxaa lahay ugu daran waaye ee dadka ka soo galaan airboorada hadda waxaa bilaawnay Xudur berin waxaa bilaaweynaa Shaati Guduud airport waxaan u sii gudbi doonaa Baraawe iyo meelaha kale ee airboorada ku yaalaan ee laga soo degto waxaa sidoo kale tababari doonaa health facility-da dadka ugu sareeyo yani dadka ayaga soo dirsadaan xarun walba caafimaad ku taal gobolka waxaa rabnaa in maxaa lahay loo tababaro qaabkii looga hortagi lahaa loona daaweyn lahaa loona gudbin lahaa xarunta caafimaadka ee loogu talagalay in lagu karantiilo ama lagu xanaaneeyo lagu baxnaaniyo dadka qaba cudurkan haday jiraan alxamdulillah ilaaha naga hay hadda barta ma hayna case oo coronavirus koonfur galbeed ma lagu arkin awaamiirana ka soo saarnay ana meediyahan waa la sheer gareyn doonaa in xarun caafimaad aysan sheegi karin ama cadeyn karin in oo maxaa la cudurkan jiro oo gobolka ka jiro aan ahayn wasaaradda caafimaad qofka wasaaradda caafimaadka in la soo xiriiro wasaaradda caafimaadka markaas meesha ugu fiican la xiriiri karto ee tahay wasaaradda caafimaadka federaalka kadib ayaga maxaa la ka sugeynaa wixii jawaab ka soo baxo qofkii looga shakiyo xarun caafimaad oo ku taala gobolka maxaa la saddexda gobol ama state-ka oo laga soo sheegi karo cudurkaas uu qabaa la dhihi karo ma jirto warqadeedana waa maxaa la waa idin soo sheergareyn doonaa sidoo kale waxaan rabnaa inaan furno maanta xarun caafimaad oo loogu talagalay in lagu karantiilo ama maxaa lagu baxnaaniyo dadka cudurkan hadii la helo shaqaalaha wasaaradda iyo shaqaalaha dawliga oo dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib maanta waxaan joognaa daafurkii oo ka hortagida iyo baaritaanka waxaan rabnaa bulshada reer koonfur galbeed qof kasta oo reer koonfur galbeed madax Allah ka dhigo oo wasiirada xildhibaanada cusub madaxda dawladda federaalka madaxda internationalka cid kasta imaanayso horta in markuu horeyso ogolaato baaritaanka in shaqaalaha anaga wasiira nahay manal baaray la dhihin taas oo codsanayna wasaaradahana codsanayna in baaritaanka la ogolaado qof kasta oo magaalada Baydhabo elboorka soo degay baaritaanka la ogolaado xawaaye baaritaanka shaqaalaha in la dhiirigeliyo shaqaalahan juhdi badan la geliyay wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka iyo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyo dawliyo juhdi badan ay geliyeen waa la soo tababaray shaqaale loo soo tababaray shaqadaas waxaan jecelnahay in loo fududeeyo horta markuu horeyso ciidamada amniga waxaan ka codsanaynaa inay u fududeeyaan elboorka uu joogo kuwa baraha control joogo shaqaalahan shaqadooda inay qabsadaan in loo fududeeyo wasaaradda caafimaadka December maalintii wadanka Shiinaha lagu sheegay December ilaa maanta shaqadaas ayay u taagneed sidii oo loo qaban lahaa shaqadii maanta meel fiican ay maraysaa maanta daafurkii ay joognaa degmada Xudur horaa loogu bilaabay shaqaalaha xamar la geeyay oo saddexda gobol ka socoto tababar ay sameeyeen reer Xudur tababarka marka la sameeyay way shaqadii way bilaabatay reer Baydhabo maanta bilaabnaa daafurna anaga aan joogno reer Shabeellaha insha Allah berito ay ka bilaabatay ka furayaan wasaaradda waxay sameynaysaa elboorada dhan Ceelberde Baraawe elboor kasta oo diyaarad ka digaysa insha Allah shaqaalaha loo tababaraa qaar ma loo tababaray qaar ma wada dhameystirayna oo ka shaqeynayaan baraha controlada kulliin shaqaalaan geynayna xuduudda Itoobiya iyo koonfur galbeed leeyin Ceelberde geeskeed ilaa Yeed Caato insha Allah ay kan shaqaalaha u diyaarinayna oo geynayna sida ruqsiya badan waxa codsanayna waxa waaye in shaqaalaha loo fududeeyo tan kale xigta waxaan rabnaa injooyada localka ah isbitaalada barefadada inay cudurkan baari karin shaqo ay ku leeyihiin cidii ay ka shakiyaan wasaaradda inay soo diraan NGO ama isbitaal barefad oo magaalada Baydhabo ama magaalada koonfur galbeed oo dhex taagan cudurka coronavirus baara dhaay aan kiileen ma jirto taas digniin waay talaabo sharci aan ka qaadayna insha Allah waxaan rabaa waxa waaye NGO-yadan in wasaaradda baaqi ka soo baxay inay qaataan cidii ay ka dareemaan
wasaaradda loo soo diro insha Allah wasaaraddu waxay sameynaysaa lambar oo saacad kasta la soo wacayo ururka caafimaadka hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadku wada cawdaane